kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada maanta aynu idinkugu hayno waxa ugu waaweyn dowladda Kenya oo ku guuleysatay meelmarinta qorshe dagaal badan u gashay ee ku aadan kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya oo hoggaanka dowladda federaalku ka biyadiideen arrintan wada xaajood inay ka galaan muxuu yahay qorshaha Kenya u hirgalay waynu idin soo gudbi doonaa waxaad kaloo daawan doontaan Puntland oo ku dhawaaqday go'aan si weyn uga careysiiyay dowladda federaalka iyo ciddii fiisa la'aan ku gashay deegaanada maamulkaas oo ciqaab adag mutaysa doonta khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu sabab u noqon karaa in dadka Soomaaliyeed deegaanada jamhuuriyadda fiisa u kala qaataan xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay go'aan dhiiga ku kici kara Axmed Xaaf kuna dhawaaqday in galmudug madaxweyne loo dooranayo bisha July ee soo socota haddaba ma yahay qorshahani mid dhaqan geli kara iyadoo Xaaf uu sheegay 3 sano muddaxileedkiisa inay kaga harsan tahay waxaan kaloo idin haynaa odayaasha dhaqanka Kismaayo oo shaaca ka qaaday cabsi darteed inay kaga baxayaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo maxaa soo kordhay iyay odayaashani ka cabsanayaan khilaaf xoogana waxa uu ka soo ifbaxay Somaliland iyo Imaaraadka Carabta maxaa ka jira in jabhad dagaal lagu kiciyay xukuumadda Muuse Biixi u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aad kula socotaan barnaamijka mar kale wacan oo wanaagsan waa 19 June sanada 2019 haddii aad nagu cusub tahay daawada fadlan ku soo dhawow channelkan oo subscribe dheh waliba taabo qaybta gamareelka si aad sahal ugu hesho wararka halkaan aynu soo gelino haddii aynu ku bilaawno barnaamijka xukuumadda Kenya waxay ku guuleysatay meelmarinta qorshe muddo ay ku raad joogtay kadib markii madaxda Soomaalidu ay diideen arrintan wada xaajood inay ka galaan golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa lagu soo waramayaa in ajandayaasha kulamadooda soo socday qayb ka yihiin muranka Kenya ay gelisay badda Soomaaliya Kenya ayaa la soo wariyay inay markaan dadaal badan u gashay sidii kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya u geey lahayd jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Kenya ayaa ku dacwootay haddii Soomaaliya kiiskan loo xukmiyo inay saameyn ku yeelan doonto wadamo badan oo ku yaal bariga iyo koonfurta Afrika isla markaana buuq badan arrintan ay ka dhalan doonto wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma ayaa shaacisay in ku faraxsan tahay arrintan inay soo farageliso qaramada midoobay isla markaana waxay rajaysay in xal laga gaaro si labada dowladood uga wada xaajoodaan waxay sheegtay Monica in haddii ICJ ay Soomaaliya u xukunto biyaha badda ee Kenya ay ku haysato inay saameyn doonto muranna ay ka dhaxli doonto wadamada Kenya iyo Tanzania iyo Mozambique iyo Koonfur Afrika tani oo saameyn doonta inta badan wadamada Afrika xogayaha guud ee golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa uu si aan rasmi ahayn kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku soo hadal qaaday muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaana goluhu ku darsadeen ajandayaashooda soo aadan lama oga go'aanka ka soo bixi kara golaha ammaanka oo Kenya ay ku guuleysatay dacwadan in horgeyso kiiska muranbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda waxa uu hor yaalaa maxkamadda ICJ ee cadaaladda adduunka waxaana la filayaa horaanta sanadka 2020 go'aan inuu ka soo baxo wahagaag daawadayaal barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya qaybihiisa hore ayaynu ku guda jirnaa qodobo kale oo xiiso leh ayaa inoo haray oo ay ka mid yihiin xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay go'aan dhiiga ku kici kara Axmed Xaaf iyo odayaasha dhaqanka Kismaayo oo cabsi darteed kaga soo cararaya magaalada Kismaayo hayeeshee Puntland waxay ku dhawaaqday go'aan si weyn uga careysiiyay xukuumadda Soomaaliya iyadoo ciddii fiisa la'aan gashay deegaanada maamulkaasi ciqaab adag ay mutaysa doonto haddaba khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu sabab ma noqon karaa in dadka Soomaaliyeed deegaanada jamhuuriyadda fiisa u kala qaataan xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday inaysan ogolaan doonin cid dambe ee fiisa la'aan ku soo gashay deegaanada maamulkaas ku-xigeenka wasiirka amniga Puntland Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta waxa uu shaaciyay inay go'aan adag ka qaadan doonaan cid kasta oo fiisa la'aan soo gasha deegaanada maamulka Puntland wasiirkan Puntland oo u hadlay sida magac dowlad madax bannaan waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo fiisa la'aan ku gasha deegaanada Puntland iyadoo ay xusud mudan tahay in dadka Soomaaliyeed ee ka yimaad koonfurta Soomaaliya
oo u tahriibaya wadamada carabta ay sii maraan deegaanada Puntland iyadoo go'aanadani ay si weyn u saameyn doonaan. Puntland ayaa ah dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee ku dhawaaqa in fiisa la'aan deegaanada aan la soo geli karin, iyadoo marka laga reebo Puntland ay harsan yihiin 4 maamul goboleed iyo sidoo kale Somaliland oo iyana doonaysa gooni u goosad Soomaaliya ka madax bannaan. Lama oga maamuladan kale go'aanada ay qaadan doonaan, iyadoo qaarkood khilaaf adag oo kala dhexeeya dowladda federaalka, balse go'aanka Puntland sabab u noqon karo kuwa kale in iyana go'aano la mid ay ku dhawaaqaan. khilaafka ragaadiyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa saameyn ku yeelan kara isku socodka dadka Soomaaliyeed, waxaana go'aankani Puntland ku dhawaaqday yahay mid si weyn uga cariisay madaxda dowladda federaalka. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay ama ku dhawaaqday go'aan dhiiga ku kici kara Axmed Madoobe madaxweynaha Galmudug, waxaana sidoo kale ay ku dhawaaqday in madaxweynaha Galmudug la dooranayo bisha July ee soo socota. haddaba go'aanka dowladdu ma yahay mid dhaqan geli kara, iyadoo Xaaf uu sheegay muddaxileedkiisa 3 sano inay kaga harsan tahay. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay kaga hadashay arrimaha doorashooyinka baarlamaanka Galmudug iyo tan madaxweyne. wasaaraddu waxay sheegtay in dhowaan la qaban doono kulan dib u heshiisiineed oo isugu imaanayaan beelaha deegaanada Galmudug si loo meel mariyo ama looga tashado qaabka doorashada loo wajahayo, sidoo kalena lagu dhaqaaqo guddi farsamo oo ka shaqeeya doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne. go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ayaa ah mid dhaqangelintiisu aad u adag tahay, maadaama Xaaf khilaaf culus oo kala dhexeeya dowladda federaalka. 4 bisha 7 ee July ee soo aadan ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalku in la qaban doono doorashada madaxweynaha cusub ee Galmudug, iyadoo muddaxileedka madaxda hadda jirta waqtigaas uu ku eg yahay. go'aanka dowladda federaalka ka soo baxay ee ku aadan arrimaha hirgelinta doorashada deegaanada Galmudug ayay suurtagal tahay khilaaf hor leh inuu dhinacyada ka dhex abuuro, sidoo kalena isku dhacyo arrintan ay ka dhashaan. waa hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya. odayaasha dhaqanka magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday cabsi darteed inay kaga soo cararayaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. waxaa isa soo taraya walaac ku saabsan xaaladda amni ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay kordheen dilalka dadka ka soo horjeeda maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hogaamiyo. qaar ka mid odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay inay soo wajahday xaalad adag oo dhanka ammaanka ah, isla markaana aysan ku sii noolaan karin magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale ay adag tahay qaabkay uga bixi lahaayeen magaaladaas. ha yeeshee waxa ay sameynayaan tallaabo kasta oo ay Kismaayo kaga tegayaan, siday noo sheegeen xubno ka tirsan odayaasha dhaqankooda diiday magacooda inaynu shaacino. qaar ka mid waxgaradka Kismaayo oo aan qarinay shaacinta magacyadooda sababa amni darteed waxa ay sheegeen inay ka fikirayaan sidii Kismaayo ay kaga bixi lahaayeen, maadaama aysan suurtagal ahayn inay ku sii noolaadaan sababa amni darteed. sidoo kale odayaashan ayaa inoo sheegay inaysan sahlanayn ka bixitaanka odayaasha ee deegaanada Jubbaland oo madaxweynaha maamulkaasi uu aaminsan yahay Muqdisho in looga yeeray dhaqdhaqaaqoodana il gaar ah oo kula socdo. Kismaayo waxaa soo buux dhaafiyay dhalinyaro bastoolada ku hubeysan oo dhar cada oo dadka tooganaya, ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka Jubbaland. iima muuqato sabab iyo xaalad aan ku sii joogi karno Kismaayo, waxaan rabnaa inaan la baxsano nafta yar ee nagu jirta, ayuu yiri mid ka mid ah odayaashan oo diiday magaciisa inaynu adeegsano sababo amni darteed. maalmihii lasoo dhaafay Kismaayo waxaa ka taagnaa xaalad cabsiya iyo dilal ay fulinayaan kooxo bastoolada ku hubeysan, kuwaas oo weli Jubbaland aysan tallaabooyin ka qaadin, waxaana la aaminsan yahay kooxahan hubeysan xukuumadda Axmed Madoobe inay wax badan ka og tahay ama ay adeejisay. sidoo kale Kismaayo waxaa ka taagan kala aragti duwanaansho xoog leh oo ku saabsan qaabka soo xulista baarlamaanka dooranaya madaxweynaha maamulkaas, taas oo keentay niyad jab ay muujiyaan kooxda isbedel doonka dhowaan kaga dhawaaqay magaalada Nairobi ee u sharaxan xilka madaxweynaha Jubbaland.
ugu dambeyntiina khilaaf xooggan ayaa kasoo ifbaxay Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo xilliyadii ugu dambeeyay xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyay. khilaafkan ayaa ka dhashay sida la sheegay markii Somaliland ay ku eedeysay Imaaraadka Carabta inay jabhado hubeysan ku abuurtay. Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay saanad ciidan iyo lacag siiyeen boqor Buurmadow oo jabhado ka soo horjeeda Somaliland samaystay. Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay in Imaaraadka Carabta ballamo badan oo kaga baxay isla markaana ay burbureen heshiisyo dhowr oo labada dhinac hore u galeen. xukuumadda Somaliland oo hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay warbaahinta u sheegtay inay Somaliland ka goosteen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo taabacsan boqor Buurmadow isla markaana aan la soo bandhigin cadeymo dheeraada. waxaa maalmihii u dambeeyay soo ifbaxay xiisad xooggan oo u dhaxaysa boqor Buurmadow iyo xukuumadda Somaliland taas oo salka ku haysa shir dhawaan boqorka uu iclaamiyay. guud ahaan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya. intaaynu mid lamid ku kulmayna barnaamijkani haddii uu alla idmo nabadgelyo.